فامشي التراب يضمني وهو الحمد لله القائل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا. waxaan jeclaystay walaalayaal inaan idin wadaago kalimaad aan soo turjumay oo aan u rogay afka Soomaaliga. waxa hubantiya qof kasta oo ibnu aadam ah waxa la dhalay maalmaha kamida. waxaanu sidoo kale adduunka ka tagi doonaa maalmaha kamida. hase yeeshee su'aasha taaganaysa weydiinta mudane waxay tahay waa goorma maalinta aad adduunka ka rawaxaysa. ma adigoo caruur baad ka tagaysa mise adigoo xoogaagu isgaadho dhalinyaro baad ka tagaysa mise adigoo goxashaayo gaboobay baad adduunka ka baxaysa. ma jirto su'aashan cid ka jawaabi karta aan ahayn Allah waaxidka ah ee aan la labaynin. arinta ugu argagaxaya cabsida badan la adduunka inta lagu nool yahay waxa weeye mawtul qafla ku soo booda qof aan diyaar u ahayn. wuxuu yiri qof kamid ah dadkii wanaagsanaa haddii la yiraahdo caawad dhimanaysa amalkayga waxba kuma kordhiyeen. sababtoo waqtigiisa oo dhan wuxuu ku buuxay Ilaahay taacadiisa subhanahu wa ta'ala oo meeliba kama banaana. إلهينا وحده سبحانه وتعالى يسقى ابن آدم كشيكينيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ابن آدم كو خورن دونا الله قول درهديده ما نولشيده wanaagu horumarsado. ها nolosha dhabta ah waa halka geeriduna waa gabagabada nolosha yare gaaban iyo barbilowga nolosha aan dhamaadka lahayn aakhiro. aynu xisaabina tusaale ahaan imisayna adduunka korkiisa ku noolaanayna 60 70 80 100 200 kun sanadood oo adduunka aynu ku noolaano haddii la barbar dhigo aakhirada aan dhamaadka lahayn waxba uma dhigata weeye macnaheedu. qaacida waxay tiraahdaa tiradu in kastay fara badan tahay haddii aad barbar dhigto ama aad u qaybiso waxaan dhamaad lahayn waxay u dhigantaa zero. waa sida adduunyadu marka loo eego aakhirada aan dhamaadka lahayn. dhacdooyin gaaban iyo arrimo yar yar ayaa waxa weyneeyay idilada dheer. geeridoo la xasuusnaado iyo xisaabta dambaysa oo maanka lagu hayaa adduunyada waxay u muujinaysaa ama ka dhigaysaa muuqaalkeeda dhabta ah. malakul maut markuu imanayo qof fasax ma weydiiso si uu nafta uga qaado. qofna adduunka korkiisa kagama tago. gaara ma beegsado. xaaladaad ku sugan tahay ma qiimeeyo. meesha kugu dilayana kuma doorgeliyo. qof sharaf iyo makaano iyo maamuus bulshada dhexdeeda ku lahaa uma aba yeelo. waa meesha ay ku dambeynayaan dhammaan neefsatada iyo nooluhu. iyo safmar aan kala reeb lahayn. qofka adduunyada ku mashquulay diilada dheer ay tagtayo ogow geeridu way imanaysaa iyadoon ogeysiis lahayn. qabriguna waa keediyaha camalkaaga. dhammaanteen walaalayaal jannayna wada doonaynaa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay udkhulul jannata bima kuntum ta'maluun. jannada ku gala wixii wanaag ah soo sameeyeen manu oranin bima kuntum ta'maluun wixii ay diilateen jannada ku gala. doonis kaliyateen kuma filla Ilaahay agtiisana waxba kama goyso. degdeg oo khayrka u dhaqso albaabka toobadu uu furan yahay oo ma xidhna. qofka aqliga badanna waa ka wanaaga u degdega inta aanay ajashiisu dhamaanin. talaabso oo xagga khayrka u soco una diyaar garow geediga aan ka soo noqod lahayn maxaa yeelay kuwii berrito la aasi lahaa maanta way neefsanayaan.